mustafa maxamed cumar wuxuu ku dhashay magaalada dhagaxbuur da'diisuna waa 45 jir hal xaas ayuu leeyahay 7 ilmood ayuu dhalay 5 wiil iyo 2 gabdhood wuxuu dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare magaaladaas dhagaxbuur ayuu kusoo qaatay wuxuu kamid ahaa mustafa dhalinyaradii lagu bilaabay deegaanka Soomaalida Itoobiya xilalka kala bedelan kasoo qabatay xilkii ugu weynaa uu qabtayna wuxuu ahaa madaxafiisaadka xafiiska waxbarashada ee deegaanka Soomaalida oo Soomaali u taqaano wasiirka waxbarashada marka mustafa intii ka dambeysana wuxuu ku biiray hay'adaha internationalka oo wadamo badan uu kusoo shaqeeyay dadku waxay aaminaan mustafa inuu yahay nin go'aan qaadasho aad u dhow leh mar haddii uusan horey uga tirsaneyn xisbiga talada hayay sidee lagu keenay waa su-aashaas Bashiir oo su-aasha inta badan dadku isweydiinayaan laakiin waxaa doortay guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ayaa madaxweyne ku xigeen ahna ku sisnaa madaxweynaha u doortay marka waxaa ku qoran xeer hoosaadkiisa qaybo kamida haddii wadanka uu gacanta ka baxo oo xaalad adag ay ku timaado diga dad ka baxsan oo banaanka laga keenay in laga keeni karo kusii meel gaar ahaan laga dhigi karo ayaa xisbiga xeer hoosaadkiisa qaybo kamida ku qoran waana sababtay cuskadeen guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu shiro waxaad ogtahay in dhibaatooyin badan ay deegaanka la soo gudboonaadeen gaar ahaan 4 August intii ka dambeysay oo xaalad degdeg ah iskaga jiray deegaanku inkastoo aan sharci ahaan iyo baarlamaan aan loo fadhiisanin haddana ciidamo military ah wadanka maamula command post baa lagu maamulaa dadkii maamulayay oo dhan ama wasiirada ama ku-xigeenada ama guddoomiyaasha gobollada maanta waxay ula sugan yihiin magaaladan Addis Ababa waa maxay marka caqabadaha hor yaala oo ay tahay inuu wax ka qabto mustafa caqabado badan ayaa hor yaala waxaan ilaahay waxaa kow ka ah sida ciidamada gaarka ee liyu booliska deegaanka Soomaalida ay isula shaqayn lahaayeen taasaa kow ah degmooyinkii badnaa ee la magacaabay bariyaha dhaweyd oo haddii laga tago oo degmooyinkaas laga tagana dhibaatooyin badan ay ka iman karaan iyo culays haddana sidii loo maareyn lahaa ee qaab dhismoodkooda loogu sameyn lahaa howlo badan ay ka taalo waxaa kamid ah isku dhacyada qowmiyadaha Oromiya iyo Soomaalida oo maamuladii hore oo dhan aad loogu dhaliilayay dadka Soomaaliduna ay soo arkayeen dad meel kaliya taagan sidoo dadka wehel ugu noqon lahaa ee arrintooda uu xalin lahaa baa iyaduna kamid ah cabdinaasir oo marka ilaa ay goorma ayuu xilkaasi haynaya maxayse tahay tallaabada xigtee la qaadayo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida bil ka yar ayuu ku shiri doonaa oo shirweyne la iclaamin doonaa waxaan ilaahay mustafa shirweynahaas ayaa lagu dari doonaa xisbiga lagaga mid dhigi doonaa marka baarlamankuna waxay ansixin doonaan oo cod kalsooni ay siin doonaan sidii madaxweyne ku-xigeen ahna sismaha madaxweynaha uu noqon lahaa marka waxaan ilaahay taasi waqti badan ma qaadan karto waa 2 isbuuc inaga horeeyaan ilaahay Bashir